مناسبة عشرة ولو سو دوينة مدحوينياش الدولة goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug ee Soomaaliya oo ka qabsoontay barxadda madaxtooyada kali ayaa waxay mid sidraadan oo si heer sare loo soo gaasimay casharaftan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Galmudug ee Soomaaliya mudane Axmed Maxamed Islaan iyo mudane Cabdikariin Xuseen Guleed wasiirka boostada iyo isgaarsiinta dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Jaamac Mursal golaha wasiirada deegaanka odayaasha culimada diinka iyo marti sharaf lagu casuumay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo ka hadlay munaasabadan ayaa xusay sidee u adkaan lahayd in kulankan bilicsan oo kale uu dhaco xilligii dargiga inay wada kulmaan labada dhinac ee dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya iyo dowladda federaalka Soomaaliya balse wada kulankan uu yahay mid ku yimid siyaasadda Itoobiya cusub waxaan ku wada fadhinaa dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo dad Soomaali oo dhaqan iyo waxa weeyaan wada dhalasho ay ka dhaxayso laakiin darisoo kala dowladda ah taas ma dhici karteen xilligii dargiga hadii uu jiro wax dhici lahaa ma aha in maanta idinkii oo Soomaali ah oo dad aan wada dhalayna Soomaaliya iyo anagoo Soomaalida Itoobiya inaan danaheena ka wada tashano taas inay tahay furaha lagu garan karo dowladda Itoobiyada cusub waxa ay tahay dad Soomaali oo haddana Itoobiyaanimada ku faanaya oo inay Itoobiyaan yihiin boqolkiiba boqol ku faanaya ayaa nahay sidoo kalena aaminsan wada dhalashada inaga dhaxaysa iyo dhaqanka inaga dhaxaya diinta inaga dhaxaya jaarnimada inaga dhaxaysa iyo eheliyada inaga dhaxaysa intaba aaminsan baan nahay waana mid aan ku khasbanayna soo xoojino madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa ku nuuxnuuxsaday sida Itoobiyada cusub ay u danaynayso deganaanshaha iyo xasiloonida dalalka dariska ee Soomaaliya ka mid ka tahay maadaama horumarka iyo nabadgelyada labada dhinac isku tiirsan yahay dowladda Itoobiyada cusub waa mid ay ka go'an tahay in iyaduna ay horumarto dowladaha jaarkeeduna ay horumaraan marka waxaan leeyahay Itoobiya oo kaliya horumartay wax ma keenayso Soomaaliya iyo Itoobiya oo sida sheegay haday nabad tahayna way isku xiran tahay haday horumar tahayna way isku xiran tahay marka waxaan cadeynaynaa in horumarka Soomaaliyana ay tahay mid aan rabno hadaan Itoobiya nahay waxaana tusaale u ah waqtigan xaadirka dowladda Itoobiya ciidankeedu waxay ku sugan yihiin Soomaaliya si ay walaalahood ay cadawga kaliya la leeyahay waxa weeyaan argagixisada ay uga difaacaan madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa hoosta ka xariiqay sidii waajibka u tahay in laga wada shaqeeyo ilaa qaadka labada shacab ee walaalaha maamuladuna ay ka shaqeeyaan nabadda iyo nagaadiga shacabka labada dal waxa inaga dhaxaya dad walaalo ah oo jaar ah oo ehela oo darisa waxaana markaa loo baahan yahay inaan ka wada shaqeyno sidii dadka walaalaha ee jaarka ee isku dhaqanka iyo isku diinta aan ka maamul ahaan uga shaqeyn lahayn inaan walaalayno isku keenno hadii ay khilaaftamaan sidii aan u heshiisiin lahayn isla markaana aan isku soo dhaweyn lahayn ayaa waajib nagu ah dhankanagana sidaas sheegteen waan adkeenaynaa wana xoojinaynaa madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa sheegay in Itoobiya iyo Soomaaliya ay joogaan waqti xaadirkan dadkii colaadda ka dhaxurin jiray sida darteedna loo baahan yahay in labada dawladood iska kaashadaan ka wada shaqeynta waaga cusub ee u bariya xiriirka walaaltinimada iyo dimuqraadiyadda isla markaana Itoobiya ay tahay dal wada noolaanshaha tusaale ku ah oo ka jiraan diimo kala duwan dhaqamo kala duwan iyo luqado kala duwan Itoobiya ay tahay dal looga dhaqmo xorriyadda aaminsanaanta qofku waxa uu doono oo diinta ugu horeyso madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar ayaa carabka ku adkeeyay in si kastaba ay wada dagaalamayaan cadawga islaamka oo argixisada alqushaashiga wixii soo raacay sida darteedna loo baahan yahay in la iska kaashado ciribtirka kooxahan gabaadka ka soo dhiganaya islaamnimada lidigana ku ah horumarka iyo nabadgelyada ummadda geeska Afrika ururo nabadiida oo markaas sida kuwa Soomaaliya iyo ka jira oo argixisada oo markasta nabadgelyada dalka iyo kan geeskaba iyo kan caalamka isku dhabayeen maxaan ku rahay carqaladeeyo taana waxa laga maarmaan inaan ka wada shaqeyno sidii awalba maxaan ku rahay anaga wada shaqeynaynay annaga dhankanaga waxaan naga go'an inaan maxaan ku rahay la dagaalano argixisada habeenii maalin meesha ma taqaana joogaana waxa aan kula dagaalano sababtoo ah waxaan aaminsanahay maanta diinta islaamku cadawga kaliya ay leeyihiin inuu yahay argagixiso al-shabaab iyo waxa weeye Boko Haram iyo wixii la mid ah inay yihiin waxaana xaqiiqo ah diinta islaamka ee fiican ee aaminsanahay si aan loo qaadanin oo diinta islaamka loo naco cadow u sameysmay inuu yahay waxaana tusaale u soo qaadan karaa nin aan maanta diinta islaamka haysanin meeshii uu ka soo gali lahaa
cadow bay kaga noqdeen nin al-shabaab arkaya islaamnimo ma qaadanayo nin aan diinta islaamka haysanin markuu arko diinta islaamku al-shabaab oo gowracaysa dadkii haddana dhahaysa ilaahay baan ku qancinayaa dadka kan gowracayo si aan diinta islaamka u difaacno waxa waajib nagu ah in al-shabaab ma taqaana la jihaadno jihaadka rasmiga ee jiray maanta cid garanaysa waa jihaadka al-shabaab lagu la jiro kaasa jihaad rasmi ah